hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ururka al-shabaab ay burburiyeen tuulooyin ku yaala gobolka Shabeellada Hoose ayna barakiciyeen kumanaan kun oo qof. arrintan ayaa dhacday dhammaadkii bishii May ee sanadkan sida ay hay-addu ay sheegtay. Axmed Xaaji Xasan ayaa soo koobaya warbixinta Human Rights Watch. hay-adda ayaa soo saartay sawirro lagu qaaday dayax gacmeed oo ay sheegtay inay muujinayaan deegaano la burburiyey dadkiina laga barakiciyey. deegaanadan ayaa u dhaxeeya Marka iyo Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana ku barakacay 15 kun oo qof. weerarada al-shabaab ee tuulooyinka ayaa sababay in 15 kun oo qof ay barakacaan maalmo gudahood. tiradan waxaa laga helay shaqaalaha UN oo sheegay in dadka ay ku qaxeen gobolka gudihiisa iyo dhanka Muqdisho. runtu waxay tahay in tirada dadka barakacay intaan ka badan tahay. hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka rayidka ee ku nool gobolka Shabeellada Hoose ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan dhammaan ciidamada kala gedisan ee halkaa ku sugan. Human Rights Watch waxa ay sheegtay in dadka si qasab ah looga saaray deegaanadooda iyo dhulkooda kadib markii la bartilmaameedsaday qabiilo gaar ah waxaana ay ka dayrisay xaaladda barakacayaasha. badankooda waxay u barakaceen magaalooyinka gobolka si ay gabaad uga helaan. kuwa kalena waxay ku biireen kumanaanka ku sugan xeryaha ku yaala duleedka Muqdisho. dadkan la hadlay ee ku nool xeryaha Muqdisho waxay sheegeen in xaalad xun ay ku nool yihiin iyo kaalmo aad u kooban. qaarkood maysan helin gabaadka iyo guri. dhibka ugu badan wuxuu haystaa kuwa ku barakacay gudaha Shabeellaha Hoose oo aysan gaarin kaalmo. gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ka mid yahay meelaha ay weli ku dagaalamayaan al-shabaab iyo ciidamada dawladda oo AMISOM garab ka helaya waxaana sanadihii ugu dambeeyay ka dhacayay dagaal beeleedyo rayid badan saameeyay.